رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيري ومانتا تجي دكدا مقدشة يا كلها اللي مامولك دكدا سنة ددتشيان قد بنت بدأ ganacsi oo taala dekadaasi si ay shacabka uga faa'iideystaan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Nasr Bashiir Cali ayaa ka waramaysa. kormeerkan shaqo ee maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ku tagay dekada weyn ee magaalada Muqdisho ayaa ku aadanaa sidii uu hubin lahaa hanaanka shaqo ee dekada waxa iska bedelay maadaama isbedel lagu sameeyay maamulka dekada taa oo sababtay inuu soo xarado qarash aad u badan iyo in la dedejiyo bixinta iyo dejinta alaabaha ka soo dega dekada maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana ay soo dhowdahay maalinta ciida. رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية ayaa kulamo kala duwan waxa uu la yeeshay mas'uuliyiinta wasaaradda dekadaha maamulka dekada iyo ganacsatada wax ka soo degsata dekada wuxuuna kala hadlay in la xoojiyo wada shaqaynta guud ahaan maamulada dekada ganacsatada Soomaaliyeed isla markaana la dardar geliyo adeegyada ay dekadu hayso shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa kormeeray qaar ka mid ah qaybaha dekada si uu indhihiisa ugu arko sida u shaqeyso dekadu waxaana warbixino ka dhageystay mas'uuliyiinta dekada iyo wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ku buuriyay maamulka dekada Muqdisho inay si wanaagsan ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed ayna u dhimriyaan maadaama ay yihiin muwaadiniin canshuur bixiyaal ah lagana fogaado wax kasta oo keeni kara musuqmaasuq. dekadu waa isha ugu weyn oo ay dawladdu ka hesho dhaqaalaha ay ku maamusho wadanka. ra'iisul wasaare Khayre ayaana markii shanaad waxa uu kormeer shaqo ku tagay dekada si loo dardargeliyo adeegyada dekada waxa uu qayb ka yahay qorshaha isla xisaabtanka iyo korjoogteynta ee ay wado xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.